بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سو dhawaada dhammaantiin waa muuqaalkii labaad ee aynu ku baranayno higaada luqada carabiga. muuqaalkii kan ka horreeyay waxaanu ku soo qaadanay lixda xaraf ee ugu horeeya xuruufta ee loo adeegsado luqada carabiga ama toddobada xaraf ee ugu horeeya la dhahdo. waxaanu muuqaalkeena kan aynu ka bilaabi doonaa xarafka sideedaad. xarafka sideedaad ee luqada carabiga waxaa loo yaqaanaa xarfu daal. xarfu daal qaab qoraalkiisu waa noocan. halkaa gacanta hadda ay joogto ayaad ka bilaabaysaa, sidan ayaad sidii wax yara rogaya ayaad iska dhigaysaa. meelaha marka aad joogto ayaa waxa weeyaan hoostan waxaad ka dhigaysaa ul yaroo jiifta ama aliftii oo jiifta ayaad hoostan ka dhigaysaa. marka aan kugu celiyo qaab qoraalkiisu halkaas ayaad ka bilaabaysaa, sidan ayaad u yara soconaysaa. meelaha markaad joogto sida ayaad u sii jiidaysaa. markaas xarfu daal qaabka ayaa loo qoraa. waa xarafka sideedaad ee kalimaadka ama xuruufta luqada carabiga. waxa weeyaan xarafka sagaalaad ayaa haddana aynu u gudbaynaa ee ka mid ah xuruuf lhijaa ama xuruufta luqada carabiga. xarafkaasna waxaa loo yaqaanaa xarfu daal. xarfu daal. xarfu daal waayahay. daal xagga qaab dhawaqa iyo xagga qaab qoraalkaba way isku dhow yihiin. qaab qoraalka horta wakaad arkayso waa sidii oo kale unbaa loo sawirayaa. xaggan unbaa dhibic la dhigayaayo kii hore daalka ahaa bilaa dhibic ayuu ahaa, kanna dhibic ayuu leeyahay. dhibicdan weeye wax markaa kala saaraysa xagga kale. qaab qoraalku waa isku mid. muuqaalkii hore waxaan baraarujiyey in yani tartiibta hadda aynu u wadno xuruufta carabigu ay tahay tartiib aad iyo aad u fiican, caalamul islaamina aad looga isticmaalo. sababtuna waxay tahay waxa ay isku xijisiinaysaa kalimaadka ee xuruufta la dhahdo qaab qoraalkoogu isku egyahay, laakiin kaliya ay kala duwayso, yani dhibcuhu ay kala duwayaan ayaa isku xijisiinaysaa. marka hadda kan oo daal ah iyo kii ka horreeyo daal ah waxay ku kala duwan yihiin dhibicda. ka horna waa bilaa dhibic, kana dhibic ayaa leeyahay. inta badan Soomaalidu ka hore deel ayay odhan jireen maadaama ay isku dhow yihiin xagga dhawaaqa si ay u kala saaraan, laakiin imaalada ay sameeyeen qaabka ay u leexiyeen inta badan ma arkin inta luqada carabiga ku dhex jiray cid yani isticmaashay culimo kutub ku qortayna ma arkin. waxa weeyaan cid kale oo adeegsanaysa shucuubta islaamigana ma arkin. حتى الشيخ عبد الرشيد علي الصوفي waa la weydiiyey, marka maan arkin buu isaguna cid soo imaalaynaysa. marka daal un baynu ku deynana insha Allah. waxa weeyaan kan daal ayaa la oranayaa. carabka caaradiisa ayaad soo saaraysaa foolasha sare, yani waxa weeyaan iyagana caaradooda daal ayaad ugu dhawaaqaysaa. waayahay aanu ka soconno xarafka sagaalaad. waxaynu u gudbaynaa xarafka tobnaad ee kalimaadka aynu dhahdo xuruufta. hadii jeer kalimaad baa carabiga dhacaya waxaan u jeedaa xuruuf. kalimaadku waa xuruuftan markay isku tagaan kuwa inoo iman doona, laakiin kan xaraf kaliya un baa dib u noqonaya. waayahay xarafka tobnaad wuxuu noqonayaa xarfu raa. xarfu raa. الراء qaab qoraalkaygu inta badan way yara adag tahay marka khadka naskhiga la joogo oo kan imika aynu adeegsanayna. marka halkaas ayaad ka bilaabaysaa. meelahan markaad marayso ayaad qalinkii adiga oo aanan ka kicin oo tusaalahaan saa intaad usoo bilowdo halkaas sidaa uguma dhufanaysid, sidaa intaad usii jiiddo haddana halkaas saa uguma dhufanaysid, saana uma leexinaysid, fool xumaanaysa. marka waxaad samaynaysaa adoona istaajinin qalinka ayaad qalinka saa u yara rogaysaa meelaha markaad marayso, deedna waad sii xoodaysaa mid toosinaysid. weli xoodid baa ku jirta sidii baada loo xoodayo kale. meelaha markaad maraysana yani qalinka caaradiisa yara dhuuban ayaad kusii dhammaynaysaayoo adoona istaajinin saa aan u istaajinin ayaad sii yara wareejinaysaa. rada qaab qoraalkaygu waa saas. waa xarafka tobnaad ee kalimaadka ama xuruufta la dhahdo luqada carabiga, waxaana loo yaqaanaa xarfu raa. waayahay xarafka yani 11aad ee xuruufta higaadu waxa weeyaan xarafka loo yaqaano xarfu zaay. xarfu zaay. zaana waa iska odhan kartaa, zaayna way dhahdaan. waxa weeye isaguna qaab qoraalka sidii uun buu egyahay ra'da oo waxba kaga gedisana waxaan ka ahayn inuu dhibic wato, halka ra'du ay bilaa dhibic ka ahayd. xarfu zaay waa xarafka 11aad. waxaynu u gudbaynaa xarafka 12aad ee ka tirsan xuruufta higaada ee loo adeegsado luqada carabiga. xarafkaasi wuxuu noqonayaa xarfu siin. xarfu siin. xarafkan isagana waxa la sameeyaa saddex gadh ayuu halkaa ku leeyahay sida aad dareemayso. marka saddexdaa yaree farood halkaas ayaad fartaa ka bilaabaysaa, yani waxa weeyaan farta labaad ayaad u samaynaysaa, fartan saddexaad ayaad u samaynaysaa, deedna waxaad ku khatimaysaa yani waxa weeyaan intan soo qola laaban
sidii nuunka oo kale week xarfu siin ayaa loo yaqaanaa qaabkaas ayaa loo qoraa saddexdan farood waa matluub waa la rabaa iska ilaali laba ha ka dhigin afarna ha ka dhigin ha ka badinin waa saddexdaas garhkaas ayaad ka bilaabaysaa farta yar labaad ayaad u samaynaysaa fartan saddexaad ayaad u samaynaysaa waad soo wareejinaysaa deedna xarfu siin ayaa loo yaqaan waayahay waxaynu uga gudbaynaa xarafka 13aad ee ka tirsan xuruufta higaada xarafka 13aad wuxuu noqonayaa xarafka loo yaqaano xarfu shiin qaab qoraalka waa sidii uu siinku ahaa waxba sharxaadeeda ku laaban maayo imika un baynu carabka ku haynay kaliya wuxuu kaga duwan yahay uun saddexdan dhibicood ee dusha ka saaran oo yani waxa weeyaan siinku bilaa dhibic ayuu ahaa shiinku se wuxuu leeyahay saddex dhibicood ayaa dusha ka saaran inta badan xuruufta hal dhibic baa kala saarta sida labadii hadda ka horreeyay aad dareemisay waxa weeyaan laakiin marka yani laba kaliyoon isku egyihiin hal dhibicun baa inta badan ay ku kala saaraan laakiin siinka iyo shiinka dhibcaha kala saaraya waa saddex dhibcood oo siinkuna waaba bilaa dhibic shiinkuna waa saddex dhibcood waayahay waxaynu u gudbaynaa xarafka 14aad ee ka tirsan xuruufta higaada warwaad dheeraysa ninkii aniga ila bilowdayo waxaad maraysaa xarafkii 14aad maasha allah xarafka waxaa loo yaqaanaa xarfu sood marka siinka unbay inta badan meel kasoo wada baxaan laakiin waxay ku yara yani kala duwan yihiin يعني waxay safiirka u yaqaanaan xataa foolinta ay leeyihiin laakiin labadu way leeyihiin laakiin wax ku yar kala duwan yihiin saadku xuruf isticlaab ku jira xurufta la weyneeyo isaga soode saasoo kala loogu dhawaaqaya halka kale siin la oranayo siin aan la oranayn marka yani weyneynta ay ku kala duwan yihiin qaab qoraalkiisu waa kan halka ayaad ka bilaabaysaa iska ilaali markasta qaabka loo qorayo waan baraarujiyaa aad bayna muhiim u tahay halkan oo kale dadku badankoodu aad bay yani ugu falxumaadaan sababtuna waxay tahay meelahan oo kale kaga tagaan si ay u soo rogaan kadib halkaas ay yiraahdaan deedna wixii way falxumaanaysaa marka fiiri halkaasaan ka bilaabaya halka hadda ay joogto aad baad ila socota marmarinaya halka hadda ay joogto farta yar ayaa mataqaana ka bilaabaya saasaad wadaysaa sida kordhiga loo qoro kale iskaga wadanaysaa halka markaad joogto yani waxa weeyaan adoon istaajinayno saan u istaajinayn ayaad soo wareejinaysaa halka markaad joogto hadana adigoon istaajinayn ayaad sii wadaysaa oo toosinaysaa laakiin tan dambe halka tii hore ay u jiiftay tan dambena saa uma jiifinayso iyadna saa kale ugu horgeynaysid tan waa toosinaysaa iyada yani aliftan hoosta taala ama waxa weeyaan qaybtan toosan iyada waa toosinaysaa deedna waxaan sidii nuunka oo kale siinka iyo shiinkiiba ay ku khatimayeen ayaad ku khatimaysaa marka xarfu saad ayaa loo yaqaanaa mar kale aan kugu celiyo qaab qoraalka halkaas ayaad ka bilaabaysaa sidaas ayaad wadaysaa halka markaad maraysaa soo yaro wareejinaysaa qalinkii oo soo wareejin sida qaansado kale ayaad ka dhigaysaa halka markaad marayso adoona sidaa u engejin ayaad haddana saabad soo waday waa toosin hadii inta kadib waa toosinaysaa ugu dambeynna waxaad ku khatimaysaa yani nuunkaas xagga dambe kaga xiran siinkii oo kaleba u lahaa ayaad ku khatimaysaa intaa kadib waa ay ku dhan yahay xarafkaasna waxaa loo yaqaanaa xarfu sood waxaanu uga gudbaynaa xarafka 15aad oo loo yaqaano xarfu dood waxaa loo yaqaanaa xarfu dood daadka qaab qoraalkiisu wax culaysa inta badan kuguma haynayo marka saadka aad sugto waayo qaab qoraalkiisu waa sidii saadka laakiin kaliya waxay ku kala duwan yihiin isagana sida aad dareemayso dhibicdan ayaa ay ku kala duwan yihiin oo saadku bilaa dhibic ayuu ahaa halka daadku uu ka leeyahay dhibic uu ka leeyahay waayahay 15 xaraf ayaynu halkaa ku qaadanay waxaanan ku qaadanay yani waxa weeyaan isla muuqaalkeennan 6 xaraf ayaa aynu ku qaadanay marka 6da xaraf waxaanu u samaynaynaa turuqul muraajacati 3 wixii aynu u bixinay ama 3dii qaab aynu muraajacin jirnay qaabkii koobaad ee aynu muraajacin jirnay wuxuu ahaa inaad fiiriso xarafka aan soo wado deedna aad tilmaanto xarafkaasi magaciisa aad sheegto kadibna aad baraarujiso waxay ku kala duwan yihiin xuruufta isku eegay marka xarafkan hadda aan soo wado waa inaad garataa xarafkan waxaa loo yaqaanaa xarfu dhaal haddii aad adigu u baahato inaad ka fikirto waxa weeyaan waad istaajisanaysaa fiidiyoga deedna waa aad ka fikiraysaa jawaab ayaad bixinaysaa deedna waxaad fiirinaysaa jawaabta aan bixiyey iyo ta aad bixisay inay iswaafaqeen haddii ay iswaafaqi waayaan marka ma aad fahmin cashirka waad ku ceshan doontaa haddii allah uu dilo ogolaado xarafkan kale aan soo wada waa xarfu daal waa iska boobsinaya intaa kadib maadaama aan kii hore aad ugu balbalaadhiyey xarafkan kale ku xiga waa xarfu zaay
حرف كان كلا كحيجة وحرف الراء، حرف كان كلا وحرف السين، حرف كان كلا وحرف الشين، حرف كان كلا وحرف الضاد، حرف كان كلا وحرف الصاد. ونسكن لاقني سيدي أي نسمين جرني وكله وان كلا هرمر مرني. يمكن واحد صوّدنا ما أنت لبا أي إسكوجي جيهن وكهذا كلرك عنسية والذال حتكون قرأتوت ككلك قرأتوا بعد بعده مركو دبعده وتذال هي مركا أنا دبعده ودنا وحرف الدال مركا مركز تأدي سويدي أنت أنا كل واقع مركا ميدا أيانا مك كلرك سينا يا كاود إن وين السويديسة هذا كلرك عنسية وحرف الزاي هذا أنا كان أيان كلرك سينا يا وحرف الراء لبضنا وحن كوكلا صارني قاب قرال كوجو وسكوجي هي دبعدا زائد الدشة كسارن الراء دون هين الهي وهي ميت كلا أيان هذا كلرك سينا يا وحرف السين marka intaan anigu ku dhawaaqin waa in adigu sheegtaa oo tiraahdo muxuu yahay way kan kala ayaan kala arkaysiinaya waa xarfu shi marka labadana waxaan yaani kala saaray dibcaha waa isku yihiin iyaguna marka ka saddexda dibcood wata shiin ah ka aan wadanina waa xarfu siin way imkan waxaan u gudbayaa kan kala aan kala arkaysiinaya bal hadda adigu ka jawaab oo isweydii inta aanan anigu sheegin way waan tilmaamayaa waan sheegaya waxaan oranayaa waa xarfu daad وهي كان قدام بيانا محن قنايا ودي سويدي سبان فلا جوابنا ود بحسي حرف الصاد أيون قنايا مركب واحد كل دوي ودبعها وي قاب كل بعض يعني مراجعين جرنا وحياة إنه تلمانو هذا هو بطريقة عشوائية وقاب سكون حد أصلا إنه ترتيب إنه مركب ترتيبته دسين قنا سوى دريمسة لبضن دبعهم هناك لصاري كان هوري لبضن وحويان يعني وحويان وكلا ساري دبعو كلا سارين تنا هوريسي لبضنا أي دبعهم كلا سارين كنا هوريو يجو ترتيبته دبيو قريين لبضنا وح هورية كان ضمبي مركا برنامج كاش أنت أنا جو شرحين أما إنك أنت صحتها وحويان ساس هذا فهمتي بوج يقرن أيات ديار سنة أنت أنا جو قرال كوج هل كان أنا سود لجين أيات قريسة سيدي يعني وحويان تطبيقي هربا عين الصميني مركا واد قريسة mid walba tii horreysay ayaad horreysanaysaa kadibna waad fiirinaysaa inaad saxday iyo in kale waayahay hadda waxaan horreysiyay xarfu daal waxaan ku xijisiyay xarfu daal waxaan ku xijisiyay xarfu raa waxaan ku xijisiyay xarfu zaay waxaan ku xijisiyay siin haddana shiin haddana saad haddana daad qaabkaas haddaanad u qorin waxa weeyaan sheekhow fahamkaagi waxbaa ku jira cashar kadib baad ugu laabanaysaa insha allahu inaan soo faqnina وارجيني وهي قيبت صدحنا مراجعين جنا وحي إننا اكتب ما يملى عليك وحلقوا يريني يقر مركا waxaan sheegnay macallin insha Allah ta'ala adiga amarka aad siiso oo aad tiraahdo qaabka aan rabay igu yiri ayaa waxa weeyaan aad raadsanaysaa waxaan leeyahay hadaad weydana dib male labadan ayaad ku haftoomi doontaa qofkaasi marka koobaad qaybta koobaad wuxuu kugu yeeynaa biطريقة عشوائية qaab isku dhex daadinayo deeda xaraf wuxuu sameeyaa kulba mid ayuu ku soo qabanaya وحويان هالكن أيا وحدها يعني ضاد قرط صراحة حدود أنا وحدها ذا القر وأنا اللي بعلمك كانت كتير حدود أنا وحدها السين قر حدود أنا وحدها وأنا يعني إزاي قرطة صاص أيو كوية لنيه مركب اللبعض وحكوية لنيه بطريقة مرتبة قاب ترتيبنا يو وعادي وكورني ذا القر ضا قر زاي قر سين قر شين قر صاد قر ضاد قر يعني قاب كاس أيا وكوية لندونا إن شاء الله تعالى قابك هدي أدو مراجعيسو لبضن قيبود أد حوق وصارتو قف قابكم كويري لبضن قيبود كويرينا يعني وحويان أدهشو يعني وحويان آد أيها يكون في عدونتا انت أمهم سن برنامج كان يعني أنا شرح إيجي سنة وقاب مراجعين ويضدك وحي آد انت بضن ويعتمادانون إني يعني مقعدا ترتيبتو ديسك حفتيان وألف لا يأدت كبدن كوي مع العيال كير أنت بدون ولا حبيت السيادة ويسكح حبيت لكن مد قولي ده هدي الله ساق هذا أما كلام كادين على مدى سوي تفسيرنا كلام نحن مجرعي ما قرني مركا وحس كذي قبنا يوم سيدا أبترسينتا يعني أبيه وكلام ويقعنه إلا ياركو ضم بيسوي جالسين لكن هدي الله يراهضه أبوه السديدات شك ده ما قرنا يقف مركا يعني واحد ويا ساسو كله لمرة أي حروف تن إيجا لو جمع بهذه السنة وألف لا يأ توح لجود كريم معها واحد ويا حرف كان إنا صورته وهدون مالك قرية هنا حرف هبل إنه يهي قرته هدي يعني واحد ويا
يعني waxa weeyaan adiga qor lagu raana aad qori karto xarafka marka inta ugu muhiimsan waa inta qaabkan saddexda nooca inaan u muraajacayno taas ayaa igu kaliftay inaad ka faa'iideysan doontaan waa rajaynaya barakallahu fiikum wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh